lagu hadalay sidii lan caawi lahay awlaadka noo gudo beledka Baydhabo iyo wayboos ku dhigay isla magaalada Baydhabo faafahinta warku way banay haytay Maryam Macalin Abshir kulun bileeran oo lagu ka hadalay sidii taakuleen lan ka sameeyay lahay ciyaalka ogoonta oo ka dhaqan magaalada Baydhabo iyo geeka ka dhig gudo beledka Baydhabo waliba kulankaas ku qayb galay wasiir ku socda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku mid ah wasiirka waxbarashada wasiirada haween wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gudoomiyaha degmada Baydhabo saraakiil ku socda hay'adda CARUURTA in marti sharaf kala Abu Kurdaliyeer oo ay gudoomiyaha xarunta ogoonta daryeelka oo gooreynta sharaxaad ku bi ujeedka kulanka iyo walalanka qabada doona runtii eedanka ma hasanna inuu inta deersin siin eedanka ma hasantin in isin laanada weelintin siin weel isin ha ajiibtaan isla markaana isin ma hayso eed iska hel qaantaan kuleelka iyo waqtigiin oo munaasibka ah oo marlaysa siin danooginka qofka lahaaytan isin hanin beer dareytan nin kooytan ku hadalay madaxa hay'adda CARUURTA ee magaalada Baydhabo Maxamed Xaaji oo ballan qaaday in fiiro gaar ah aan weeldado doonaan ciyaalka ogoonta ee ku nool magaalada Baydhabo muhiimadeenu ay tahay maantana waxaan rabnay inaan si officially ah aad maaragtay naga gudoontaan oo maaragtay advocacy loo sameeyo idinkii maamulkii wadanka tihiin inaad maaragtay xataa cod dheer inaad ku tiraahdaan dadkan waxa loo qabto maanta annaga waxaan wax yar waaye laakiin waxaan rabnaa inaan dadka ku soo jeedino in baahidan dadkan wax laga qabto intaan kaliya ma kaafinayso wax badan oo kala maqan idinkaan naga cod dheer inaad tiraahdeen war dadkan hal la caawiyo war dadkaana wax u baahan maanta TV-yadan iyo muxuu ahaa idaacadahan iyo maanta fursad fiican aan haysanaa in dadkii kale aan wax ugu sheegno ganacsatada aan wax ugu sheegno culimada diinka aan wax u sheegno hay'adaha samafalka kaliya ma in dadkoo dhan markii wax loo sheego xooggaas la isku biiriyo waxay noqonaysaa in wax badan dadkan baahida gaarka qaba gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Wateen oo talaabo wanaagsan ka tilmaamay fikirka geeka meelasayti naniska kooy oo lagu ka hadalay dhibaatooyinka ciyaalka surumay boqol ka caawi lahay waxbarashadiisa lankan dawladda ma haqaleeyeen walbarada inuu caafimaad helo inuu maarays guri helo wali bani'aadanka kale oo helo fadhi oo lanka fiican helo fadhi ma haqaleey lanka jiri masanta ka jiri ma haqaleey inuu caafimaad helo wadban ma haqaleey lankusun oo ahaan laayna aan lahayn oo may baaayso dhimadan geegan doctor ma haqaleeysun inuu daryeelkii may baa wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Nadiifa Xaaji Carami oo kulanku ku hadlayay in sheegtay in haboonta in walan gobada ciyaalka tabaalaysan isku dib waliba fadayntii amaan hanka jeedi inta ururka madaxdiis SSYO orunti dadaal eedan wiin gali juhdi waana ka fikirin dhabar adeegi xaaladda geega dalkan ku sugunyi inuu awlaad Soomaaliyeed oo dhibaataysan runtii Soomaali markii la ku bilaaw burburkii dagaaladii 90meedii ku dib waa waliba martay xaaladda eedan shal dibun oo eedan adag intaas ka dib awlaadda Soomaaliyeed duruufo adag la kulmeen ma jirna eedan dhabar adeegti ma jirna wal kor isku saari waalid walbanta fadhigeega kulay awlaadada dhalnay una dhan laakiin aan hadda la bilaaway awlaadada dhaleen qof walba dareemo karo xanuunka yeelato waana dareemo karo onogshay inuu soo barasho la fadaw caafimaad la fadaw horumar la fadaw laakiin waliba jiro awlaad badan runtii ka dhibaataysan deegaanada koonfur galbeed wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi Aadan oo siina qayb ku hayo kulankan geeka lagu ka hadalay xuquuqda ciyaalka sharaxaad dheer ku bi dhibaatooyinka ciyaalka iyo faa'iidada yeelata in la gargaaro daga ay shaqooyin wanaagsan eedan wanaagsan ku qabadaay dhinaca waxbarashada dhinaca meel raay qaxootiyada dhinaca iyo dadka tabardaran eedan support gareeyaan eedan ka mahad celiyaan way rajaynaa insha Allah intii koronsi qaadi doonaan si gaar ah wasaaradda waxbarashada way kula shaqeeyaan dhinaca waxbarashada iyagoo eedan dhiirigeliyay dhinaca waxbarashada si macallimiinta qaar macallimiin badan lacagnin ku bixiyaan iskuul badan sababta tiidito geeka ka shaqeeyaan markan yoona weelana eedan ma santin insha Allah hay'ado badan oo wadanka isku rooga magaca sheegadaayaan wal badan qobadaayaan way rajaynayaan SAF tusaalan nagata waana ka daydan naftiijooni iyo wal qowadan magacantii la sheegada boormeelka dhajisa macna ma sameeyas laakiin bulshadan geeka ma baahanta intii la caawi dhinaca kasta ku caawi oo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca meel dheerahay hulaanta ciyaaladan dhibaatada geeka wadanka ku jirta way qayb ku mid nijeysadahay ciyaal la ilaaliyo way daraadiyo iyo jeysadahay cunuga may ba dhibaato in ka jeysada ku yaabay wal $50 $100 dhanayna dhibaatooyinka jeysada laakiin cunugaas hadii nololis waxbarashadiisa la keer garay la xanaanay
wayba may leeyahay dhigi kortay mise waaba macquulaha ani dhibaatooyinkan dhiyaha hataa yaraadan waana aan ku qayb qaadan laakiin way xaqiiqaya dadaan tiro qobda may leeyahay dhibaato weyn boqolaal qof intii walka nagadan ma laabshir KGSTV baydhaba